waxaasoo dhan waxaan uga jeedaa gabadha muslimadii door muhiima ayay ka ciyaartaa marka la eego diinta meel halbowla ana way kaga taallaa ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waayo bisalaaxiha hadday gabadhu hagaagto bulshadu way hagaagaysaa hadday gabadhu fasaaday xumaatana waynu taataaban doonaa bulshaduna way xumaanaysaa gabadh la odhan jiray umma sulaym oo dhashay anas binu malik bal xikmadeeda lagu tusaya waanu naqaana qisadeeda meer badanna waynu ka maqalay culimo fara badanna waynu ka dhagaysanay umma sulaym xikmadeeda bal eeg nebigu sala allahu calayhi wasalam markii uu soo haajiray oo la soo qaxay ayay waxay aragtay raggiyo dee nebiga sala allahu calayhi wasalam hareeraha ka fadhiya cilmigii bay ka qaadanayaan diintii bay ka baranayaan taqwadii bay ka qaadanayaan dee nebigiibay sala allahu calayhi wasalam hajigoor la fadhiya way u timi markaa nebigii iyadoo ilmihii jiraa wadda ilmo yaroo 10 jira ayay waddaa ama culammadu yidhahdaan 8 jira ayuu la yidhahdo anas binu malik anas bay keentay way u soo badashay way soo qurxisay waxay tidhi yaa rasuul allah ha kuu shaqeeyo kan yari ha kuu shaqeeyo ha ku caawiyo qof gacanyaro waad u baahan tahay oo markaad weysada ama kabta ama dee wax yar aad diratid oo dee haddaad wax arrimo waaweynaad saxaabadda aanad doonin inaad aad u diratid kan yar u diro yaa rasuul allah una ducee bay tiri una ducee nebigu sala allahu calayhi wasalam uu duceeyo wuxuu yidhi ilaahayu cumrigiisana dheere risiqna sii ballaaran caruurtana u barake anas wuu yimaadaa habeenkii nebigu iska ag fadhiya waa ilmo yar umma sulaym marka waxay tidhaahdaa ilmaheeda waxay ku tidhaahdaa war ii war maxaad nebiga ka baratay sala allahu calayhi wasalam cilmigii markaa maalintii oo dhan uu dhagaysanaya ilmaha yar ku dhacayay ayuu habeenkii hooyadii u gudbiyaa waa hooyo xakiimada oo cilmi iyo caqli ilaahay subxaanahu wa tacaala siiya haddaynugu noqonno dib taariikhda ummadda islaamka waxaad arkaysaa ummadda islaamku waxay ku dhisnayd dumar waayo culammadan aynu dhagaysanno oo dhan dee horta dumar baa dhalay waa kow laakiin ciddii soo ababisay ee maalintii ugu horraysay ku canqarisay cilmi iyo taqwo iyo cabsi ilaah dee aabbaha muu ahayne wuxuu ahaa hooyada ayay ahayd imaam axmed binu xambal waan idinka sheekeynayaa ama mid baa idin taaban karaa imaam axmed binu xambal wuxuu ka dhashay reer ahlilcilm ah laakiin fuqara ah aabbihii markaa wuu dhintay hooyadii markaa yani gabadha muslimadii doorkii ka ciyaari karto ayaa lagu tusaya hadday ay saalixata ay tahay hooyadii marka intay soo kaxayso ilmahan yar ayay la soo gudi jirtay waa gudcur waa madow magaaladu sideennan dee sida kama wada hilaacayaan waa saq dhexe ilmihii yaraabay keentaa masaajidka intaan la adimin masaajidkay soo gelisa halkaa fadhiisa bay tidhaahdaa xagga dumarkay fadhiisataa salaat alfajr bay la sugtaa ilmaheeda markuu salaat alfajr ay tada macallinkiiyo wax u dhiga daba markuu ilmihii yaro kobco uu yaro weynaaday ayay habeenkii guriga yaquul axmed bin xambal asaga iska hadlaya anoo yar ayay hooyaday odhan jirtay guriga adiga u nina guriga adiga u imaama guriga adiga u sheekha si nin u hadal si sheekhnimo ah nolol dhaqan si nin caalimo oo taqwad leh u behayf garayo dee akhlaaq ha lagugu arko qiyaama leyl ay odhan jirtay adiguna tuki adiga bay leen imaamkii guriga ah hooyo wuxuu yihi hooyaday markaano ilmo yara ayadoo iga qur-aan badan oo iga cilmi badan ila waa nooc min atarbiya ayay i joojin jirtay soo odhan jirtay adigu salaada inoo bilow wuxuu yidhi markaan yaro weynaaday ayaan hooyada intaan soo gaaray marxaladeedii baan dhaafay markii dambe waxay odhan jirtay hooye adigu sii wad anigu waan daalay way iska seexan jirtay waa xikmad markuu 6 iyo 10 jir noqdana waxay tidhi orodo ka tag meesha cilmi doono iyo diin waa hooyo subxaan allah imaam ashaafici sidaas lag yatiim buu asna ahaa
imaam maalik binu anas markuu yara ayay hooyadii intay soo qabatay bay u soo bedeshay maryihii culammada zay alculamaa hay'at alculamaa bay ugu soo bedeshay waxay ku tiri idhab watacallam min rabiicati alra'y wakhud bikhuliqihi qabla cilmih وفي رواية وخذ بأدبه أو من أدبه قبل علمه أرض بيتري بح لفرس ربيعة الرأي وعالمك مركب مدينة شوقي إذا تكبر أنت على العلم جيسة كبراني وتوجيه هو ينماء وحكو تسزى مركب دورك هو يدو ميش وكتاقية هاي تربية أمد إمام ابن تيمية وين نقلنا أحمد بن عبد الحليم وابن تيمية ومركز تاريخ أمد اللي لقي مدى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عالم له قياسي كراه والله أوران كرا نكن إسكو علمي بيهنو إسكو فهمي بيهنو إسكو درجات بيهن مجرو وهانين عالمة أو بليغة أو كاتبة أو مفوهة أو جميع المذاهب كوقت قاعد شري يقانة أو متقنة أو مجاهدة أيها ولا يخاف ولا تأخذه في الله لومة لائم نين لمدي موتشرين وحنبار سي مقعي أيدي وابن تيمية لما إلى هذا أحمد بن عبد الحليم لقيا به قارب بدن هدان مان وهلك فدي هدي أن ويدين لها وابن تيمية مقعي عيسى بل مقعي عيسى شاقة إن قارب بدن كل من لها يعني كبح الهين أيان لقيا به مقعي قلنا قانا وتيمي وابن تيمية وايو أيدي ayaa la oran jiray taymiya oo caalimad ahayd markii la arkay ilmo yar oo naabiqad ah oo wax loo dhiba xafidaya oo ma sha Allah taqiya oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsanaya oo cilmi xambaarsan ayaa la waniyo ilmahaasi yuu la mid yahay saarada ayaydi saarada waxa loo bixinaya ibn taymiya al-bukhari waa lamid sufyan ath-thawri waa lamid هديان إذين سوق سعد الليث بن سعد ولمد علماء حسن البصري ولمد سعيد بن المسيب ينتيس ولمد يعني هدين ما أنت لها كان أين تاجنونا أين سنهنا تريجريا أما حسن علماء دي أي هو ينكت سوكريين أما أي أثر كلها هين مرة ما ينو وحنوجه إذا مركا هو يدو الدور كلها هانكرتو المه يدور كعيار كرتو جالية ilmihii markaa hadduu yahay ilmo saalixa oo hooyo hagaagsanay ay dhashay waxaa laga filayaa marka inuu ummaddu ay ka faa'iidaysato oo ummaddu ay dhaxasho wixii ay hooyadii ku shubatay inan iyo inanba ayagoo isku mid yihiin sheeko yar baa dhacday kolley wada maqasheen oo ku saabsanayd saciid bin musayyib radiyallahu anhu waraxima ninkaasi wuxuu ahaa nin taabiciya ولكن عالمة وأمد أي آد يادو قدام بيسو شرفنا انت سأوقف في الليل لكن وحلوغو أبتريا قبل قبوه إنو دالي أبو هريرة رضي الله عنه انت وحا أقدر إنن أيو إلهي سبحانه وتعالى أوسيي قروح يا أخلاق يا علم بله أمير المؤمنين iyo caruurtooda iyo dadka umarada ay dadka xoolaha leh maalin walba bay soo diraan waxay dhawaban inanta nasiyo inankaan u goorinne wuu diidaa ma doonii mar inanteeda inan meel fitna ageeyo waxa markaa la soo sheegay nin ardadiisa kamid oo dhalinyaro Abdullah ibn Abi Wadaa la oran jiray ayaa 3 cisho ayuu ka maqnaa xalaqadii maalintiina ayuu yimi سعيد بن المسيب مركي حلقات دماتي بكوي ور محار دعي صدح شكمان أرجع محار دعي وحولي يا إمام بويري قبل لي بيقول دماتي حاس كان قبل أيام دماتي خيركي خير حاس مركار إن أنت قبل دي من آسية الحاس كمان آسية صدح داعي شو مشغول بانها يقرها لي ها وحولي ور ما قوستي إسلامي كأورانا يا بلا وحي كاسموش عليه بالأورانا يا إمك مركار ما قوستي بويري صدق شاك سوى ريكتية خير ميالات وحولي يا إمام بولي ومن يزوج يا يقولين يا بنين فقير بانا يا يقولين أدونا صدح دينار يوم صدح درهم أيان كالله يا عباد حولو أن شيكتو وإن أنا نقول قد فريستو أن يرد يا مهر يا أروس
waxaas maba jiraan buu yidhi yaa ii guurinaya inantiisa wuxuu yidhi aniga ka war haddaan kuu guuriya inantayda faatima bintu saciid wuxuu yidhi marka argagax boorta waan miyaan naxa mise waan farxa ma shaki baa ay waxaan wadaadku mi yaro waashay mise wuxuu ku hadlayaa xaqiiqa ii meheri buu yidhi waaye labu u yeedhay marka war markhaati ka noqda inaan ninkan inantaydii aan siiyey wuxuu yidhi marka waxaan ahay faqiir kaxyaan sacluug shil ma haysta buu yidhi waanan soomanaa gurigii baan iska tago iska soo afar wataa la tukaday waan tagay gurigii baan iska dhex fadhiis wuxuu yidhi marka qurus yaroo roodhiyo angegan aan saliid anoo ku dhuuqaya wax kale guriga ima yaalaan buu yidhi in yaroo milixoo angegan ayaa albaabka la garaacay faqultu man waa kuma qaala saciid waa saciid buu yidhi wuxuu yidhi saciid waana aqaanayba magacii wuu igu soo dhacay buu yidhi tolo ma saciid hebel hebel baa mise waa saciid hebel hebel mise waa ninka saciid bin musayib mooyaane waayo buu yidhi 40 sannadood waxay ahayd caadadiisu inuu cishaay uu tukado uu gurigiisa uu tago cid lamu hadli jiray albaabkii baan furay waaba saciid bin musayib taagan meeshii maxaa dhacay buu yidhi maad ii yeedhi anaa ku iman lahaay maya buu yidhi laakiin waxaan dareemay buu yidhi inaanay cadaalad ahayn inaad keligaa caawa seexatid ayadoo gabadhii guriga magaalada gabadhaadii magaalada ay joogto wuxuu yidhi markaa intuu ka yaro dhaqaaqay mise waaba gabadhii halkan taagan buu yidhi waaba gabadhii halkan taagan wuxuu yidhi marka wuu soo riixay albaabkii buu noo soo xidhay maanu wada sheekaysanin maanu haasaawin caankay u egtay garan maayo niqaab bay xidhan tahay ayadus ima garanayso inan dee maasha allah facebooka ragga kala haasaawdana may ahayn inan maasha allah sawir cad oo qurux badana inta facebooka soo geliso hadhowna dhagax yaroo madow kaga soo baxana may ahayn ee waxay ahayd gabadh dee ku eeg oo gurigeeda taqaana oo diinteeda taqaana wuxuu yidhi markii ay soo gashay oo albaabkii noo xidhay ayay inantu suuxdeen naxdid aawadeed anna wuxuu yidhi marka waa naxay horta wuxuu yidhi lugtan ku yaro dhuftay roodhidii iyo ciid iyo midixdii iyo waxaan sidii ceebtaada arkay ee iscasur wuxuu yidhi waan cararay dushaan isku taagay waan qayliyey hooyadana guriga ka maqantay wuxuu yidhi yaa ayuha annaas زوجني سعيد بن المسيب ابنته سعيد بن المسيب إن أنت سوي إيجورية حتى يعرفتان برتو جوري قبل كسر بحيسا هورنا وذات كسوق مذوب مري إلالي أوكسون هذا وحيري إسلام حافظ دايدو شاركيجا آيات كذبت بنالات بيتري سعيد بن المسيب حين أنت هذا السعلوق أديو وقدرية هو يدي بين مقاشيب والقيرة دي وحي قتري إن لمستها هديت إن أنت تابتي فويلك ثم ويلك وكدي لي عدت إن تتابتي بي وحولي وي سانتي باتمي إن أنت قولي بالله يقصاري مري قولي الله يقصاري أي حد ولا يجار إن أنت يو لقاضي لسوق قرحيي لسوق هجاتشي ما شاء الله ليس دياري وحولي وان سوق علي فما رأيت أجمل منها قط قولت قروح بدن ولي يا الله ما ضحيكم يصل عندي والنعم وحول إلهي سبحانه وتعالى هبينك بدل لبيك اللهم لبيك كبعد بوي الصبح دي بان كعد إذا إمك أرض بان هاي وضيقة دي أن إنك قرسنا ومعلن كيك ما هفصامي كرم وانت جيبوني وعن بحي وحمد لله بحي إلى أين بيقول حاجة تجلس دي وضيقي شيخ سعيد بن المسيب احتصر لك أنا قالت اجلس فعلم أبي عندي وحو أبهي يقانو رمبا أنا جا هيا بل يرفع لسبيت الوكال أنا وحكور لجيه حبلها ما أنت وده بدن إلا ما رحم ربك مركز لجورسدو متكورنا سعلمي بانكوها يا مجرد أما وحبان كور لجيه مج إسكبداتها لكن لجيه بإن كتر هذا بل إن جاء شريطا أما إن جاء إن ميركلا إن جاء أما الدون يا أموره سأكتر ما ويدو إن أنت علماء دي مركا ويحللين وحي إلى أدن يا صوت البيادي فضلك يا لصي يا عبد الله
oo loogu abtiriya khayrkan ma saciid bin musayib mise hooyadeed wixii dumar guriga joogay waxaa la yidhi aabbuhu shaqo kumuu lahay aabbuhu waayo aabbuhu dee markuu guriga subaxdii ka baxo masaajidku fadhiista duruus buu akhriya habeen oo dhan iyo maalin oo dhan cishaay buu ka soo rawaxaa goormuu wax tarbiyadeeya goormuu wax u dhigaa carruurta goormuu kala dabbara maba waqti ma hayo laakiin xikmaddu waxa weeye waxay ku aasantay waa hooyada baa leeyihi marka gabadha muslimadda ee soomaaliyeed haddii ay garanayso doorkeeda iyo muhiimadda ay leedahay waxay u xidhan lahayd inay carruur wanaagsan inoo soo kordhiyaan